Assalaamu calaykum. Maxaad ka ogtahay dalalka adduunka ka jira? Qaybtii koowaad. Somalilan magaceeda rasmiga ahi waa Jamhuuriyadda Somalilan. Waa dal ku yaala Geeska Afrika. Waxay xad la wadaagtaa dalalka kale ah Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya. Somalilan waxay ka mid tahay dhulkii maxmiyadda ahaa ee Ingiriisku gumaysan jiray, waxayna xorriyaddeedii ka qaadatay 26 Juun ee sanadkii 1960. 4 maalmood kadib waxay la midowday Soomaaliya oo inteeda kale Talyaanigu gumaysan jiray. Somalilan caasimaddeedu waa Hargeysa. Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo ahaan jiray hogaamiyihii ururkii dhaqdhaqaaqii waddaniga Soomaaliyeed ee SNM ayaa loo doortay inuu noqdo hogaamiyihii ugu horreeyay ee maamula Somalilan. Waxa ku xigay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo noqday madaxweynihii labaad ee Somalilan, waxaana ka dambeeyay Daahir Yaale Kaahin oo ahaa hogaamiyihii saddexaad. Waxa ku xigay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ahaa madaxweynihii afraad ee Somalilan. Madaxweynaha hadda talada hayana waa Mudane Muuse Biixi Cabdi. Somalilan wax ka jira 3 xisbi siyaasadeed oo kala ah Kulmiye, Waddani iyo UCID.